dhagaystayaal ku soo dhawaada qiso jacayl oo qamuunyo leh taasoo aan ciwaan uga dhignay wiilkii reer Burco ee jacayl ku jarribay iyo jacdii uu kala kulmay. waxaa sheekadan saaxiibkii ka wariyey Maxamed Royal. saaxiibkii reer Burco ah ayaan habeen sheekaysanay arrimo jacayl ayaan soo hadal qaadnay. waxaan kula kaftamay in magaalada Burco ay ku jirto meelaha lagu dacaayadeeyo in jacaylka la isku caayo. wuxuu igu yiri aniga kan igu dhacay kaliya ayaan kaaga sheekaynayaa bal markaas adigu go'aan gaar. wuxuu ku bilaabay iskuulka markii aan dhigan jiray ayuu wiil bedel ka soo qaatay iskuul kale. dadku iskuulkeenna ayuu ku soo biiray. kadib isku fasal ayaan noqonay. waana saaxiib. bil kadib ay haddana gabadhi ka soo bedelatay isla iskuulkii wiilku ka yimid. iyadiina fasalkeena ayaa lagu soo daray. anigu gabadhii ayaan jacayl xad dhaaf u qaaday. waxaan xitaa gaaray heer aan lacagta aniga la isiyo xilliga bariifta ama lacagta breega aan iyada wax ugu gado oo aan fasalka ugu keeno. waxaan sidoo kale gaaray heer meesha ay istaagto aan la iga waayin. haddii ay maqan tahayna aan anigu fasalka ka baxo. laakiin intaas oo dhan kuma aanan guulaysan inaan hanto. muddo markii ay sidaa ahayd oo aan wax waliba samaynayay wax guul ahna aanan weli gaarin ayaan maalin ciid ah gabadhii suuqa isku aragnay. kadib markii aanu isbaryadinay ayay warqad ii dhiibtay. warqaddii ayaan akhriyey markii aan gurigayga tagay. waxaa ku qoran sida tan: nin yahow, aniga iyo adigu waa isku lunsannahay. anigu iskuulkan waxbarashaba uma imanay ee wiilka hebel ah ee aad isku kursiga tihiin ee iskuulkaas ka soo beddeshay ayaan jeclahay. dartiis ayaan u soo beddeshay anigu oo aan iskuulkanba u imid oo iskuulkaygii hore ayaaba u dhow xaafaddeena. kumase guulaysan oo isaguna aniga ayuu baxsid iga yahay. marka iga raalli ahow, anigu kama quusan doono wiilkaas. haddii aad axsaan ii falayso fadlan igu caawi inaan helo saaxiibka. haddii kalena adigu culays cusub ha igu kordhinin oo ha igu noqonin. mahadsanid. maxamed xaaji, hadalsama media.